Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaan naga daawanaysaan waa Cabdiweli Jubba Official. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo taabo, haddii aad hore inala joogtana waad ku mahadsan tahay. Qiso oo ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool. Anigoo qurbaha ku nool ayaa muddo waxaan isbaranay gabar Soomaaliyeed. Gabadhii waxaan isku afgaranay oo aan ku heshiinay in aan isguursanno. Alle wuu isku keen calfay waana isguursanay. Gabadhii markaan muddo isqabnay ayay uur qaaday oo xaamilo ayay noqotay. Gabadhii aad bay ugu xanuunsatay uurkii oo dhibaato badan baa kasoo gaartay uurka. Dhakhtar baan u geeyey, waxay ahayd markaas 4 bilood. Dhakhtarkii markuu baaray wuxuu i dhahay gabadhan guriga kuma celinaysid, isbitaalka ayay joogaysaa inta ay ka dhalayso ama ay ka umulayso, si aan u badbaadino ilmaha yar ee caloosha ku jiro. Waan ka aqbalay go'aankii dhakhtarka, sidii bay xaaskayga isbitaalka ku joogtay. Waxaan ka shaqaynayay 2 shaqo, waxay dantii ugu kaliftay markaas inaan hal shaqo u go'o oo hal shaqo aan ka shaqeeyo, si aan xaaskayga ula joogo oo aan u caawiyo. Magaalada aan deganahay ama aan ku noolnahay inta badan dad Soomaali ma joogaan, reerkayga ama gabadha reerkeedana ma joogaan, oo wax ciidan ah oo gabadha intaan shaqada ku maqanahay la sii joogaya ma haysto. Waxay dantii ugu kaliftay in aan shaqaaleysiiyo gabadh Isbaanish ah si ay u caawiso xaaskayga ee ugu adeegto inta aan aniga maqanahay. Markay 7 bilood gaartay ayaa ilmihii laga soo saaray, waxayna xaaskayga umushay gabar caafimaad qabta. Alxamdulillaah, xaaskaygana way caafimaaday. Markaan muddo joognay oo ilmaheena yaraana aan haysanno ee aan noqono reer isku wanaagsan ee isku barakaysan, ayaa ilmo labaadna calool galeen. Ilmihii labaad markay calool galeen, xaaskiina xanuuno badan baa lagu arkay oo dhakhtariintii ku sheegeen, waxaana lagu dhahay naftaada khatar ayay ku jirtaa haddii aad ilmo kala dhasho ama aad uuraysato. Adiga iyo ilmaha yarba naftiina khatar bay ku jirtaa. Dhakhtarkii baa igu yidhi gabadhan dhalmo dambe ee dhali doonto ma jirto, weliba caafimaadkeeda daraaddeed. Waxaana dhacday in sidii hore gabadha isbitaalka mar kale la seexiyo oo halkaas lagu hayay inta ay ka dhalayso ama ay ka umulayso, si loo ogaado caafimaadkeeda oo lala socdo mar walbo. Kadib ilmihii labaad baa noo dhashay, gabar kale ayayna noqotay. Alxamdulillaah. Dhakhtarkana wuxuu ku yidhi marka ugu horeyso oo aad 40ka ka baxdo oo weliba waqtigaadana la gaaro, waa in aad sida ugu dhaqsiyaha badan aad aniga igu imaataa, si ilmaha lagaaga xiro oo aad uur kale u qaadin oo ilmo kale u dhalin. Xaaskayga aad baan u jeclahay, waxaanan ku dhahay waad arkaysaa waxa dhakhtarka uu leeyahay, naftaada halis bay gelaysaa haddii aad uur kala qaado. Wayna diiday, waxayna dhahday aniga dhakhtar ma aadayo, mana la iga soo xiraayo, oo adi haddaad isxiraysid aday kuu taalaa, waayo aniga isma xiraayo. Anigana waxaan ku dhahay war maxaa kaa qaldan, dhakhtarkii waxa uu ku dhahay ama waxa uu ku lahaa miyaad ilowday? Waxaana ku dhahay haddii aad uur qaado naftaada ayaa halis galayso oo waad u geeriyoon kartaa arrintaas darteeda. Gabadhii xaaskayga ahayd waa ay isi soo taagtay, go'aankeedii ayayna ku adkaysatay. Anigu waxaan ahay qof luuqadda garanayo, xaaskaygana ma aysan ahayn qof luuqadda wanaagsan ama si fiican u aqaano oo waxa dhakhtarka sheegaya fahmayso. Dhakhtarkii baa ila fadhiistay oo ila hadlay, wuxuuna igu dhahay gabadhan haddii aysan isxiraynin, haddii ay uureysatana ay dhiman karto oo nafteeda halis ay geli karto, oo adigana mas-uul aad ka tahay oo mas-uuliyaddeeda aad hayso, maxaa xal ah? Waxaan ku dhahay maadaama aan xaaskayga jeclahay oo 2 caruur oo qurux badan ay ii hayso, aniga hal iga saaray xididka dhalmada, waayo ma doonayo xaaskayga inay iga dhimato. Waan jeclahay oo waxaan doonayaa inta nolosheeda ka dhiman in aan iyada la qaato oo aan farxad iyo reynreyn aan ku wada noolaano. Ee dhakhtarow aniga iga xir dhalmada. Dhakhtarkii wuxuu igu dhahay ha ku degdegin arrinkan, waayo arrin sahlan ma ahan, waayo haddii aan dhalmada kaa xiro weligaa dhalamaysid ee ka fikir. Markaas ayaan aniga go'aan ku gaaray in aan arrintaas sameeyo, oo weliba go'aankayga ugu dambeeyay uu ahaa. Kadib qofka ugu dhow ee aan la tashan karo wuxuu ahaa xaaskayga, maadaama meeshan cidna ii joogin oo aniga iyada bes aan isdugaashanno waqti walbo oo labadeena aan wada noolnahay.
waxaan ku dhahay arrintaas baan doonayaa inaan sameeyo, maadaama aad adigu diiday in aad iska xirto. Aniga ayaa go'aansaday in aan iska xiro dhalmada, maadaama ay adiguna naftaada khatar ku geli karto arrintaas awgeed. Saas u ogow. Dhakhtarkiina wuxuu dhahay waa in xaaskaada ay kula saxiixdaa warqaddan, weliba idinkoo wadajir ah. Iyadana waa in ay saxiixdaa warqadda in aysan kaa tegi doonin weligaa, ay kula noolaan doonto, oo ay dhihi doonin ifur iyo wax aan loo joogin. Waxay igu dhahday masaas baa ma adigaa dhalmada iska xiraayo? Aniguna waxaan ku dhahay haa. Haye bay dhahday. Dhakhtarkan u tagnay, warqaddii bay saxiixday, anigana sidoo kale waa aan saxiixay. Intay saxiixin baa lagu dhahay ninkan adiga dartaa buusaan u sameeyey oo dhalmadii iskaga xiray. Saxiix in aadan ka tegaynin beri, oo aadan dhihi doonin ifur, oo meel cidlo aadan kaga tegi doonin. Way aqbashay, wayna saxiixday. Waa liiga saaray xididkii dhalmada. Muddo markaan xaaskaygii wada nooleen oo ilmihii weynaadeen, oo gabadhii noogu jiray 7 sano ay gaartay, ayay xaaskaygii isa soo taagtay, waxayna dhahday kulama noolaan karo. Waayo waxay dhahday anigu in aan dhalaan rabaa, nin aan dhalaynin aniga uma baahni, mana la noolaan karin. Sidii nin neef geel ah iska soconayo oo aanan dhalaynin, ma dhalo ah, anigu uma baahni. Anigu waxaan rabaa in aan dhalo. Waayo waxay dhahday ilmaan u baahanahay aniga, xitaa aan dhinto haddii aan rabo. Aniguna waxaan dhahay soo adigii warqadda saxiixay oo ballan qaaday in aadan iga tegi doonin inta weliba cimrigaaga ka dhiman. Hadalkeeduna wuxuu ahaa aniga ilmaan u baahanahay, inaan dhalaan u baahanahay, xitaa waxaan rabaa nin kale inaan guursado. Go'aankaygana waa sidaas ayay i tiri. Aniga aad baan u murugooday, waayo xaaskayga waa ay i qayaantay. Carruurtii bayna kaxaysatay, gurigiina waa ay iga guurtay, oo aniga keli ayay iiga tagtay. Sharciga waddankana waa in warqad la xareeyo marka ay labada qof isfurayaan ama ay kala tagayaan, oo maxkamad la tago. Warqaddiina ma aysan xareynin, anigana ma dacweynin oo maxkamad ma aanan aadin, oo waan iska dhaafay, maadaama ay tahay carruurtayda hooyadood. Muddo yar kadibna wiil kale bay guursatay. Aniga weligay dhali maayo, weliba cimrigayga inta ka dhiman sidan baan ahaanayaa. Xitaa gabadhii sidaas darteed aan u sameeyey xitaa waa iga tagtay. Waa qiso xanuun badan, waa xanuun badan tahay, balse waxaan ku dhihi lahaa weligaa qof bini'aadan ah ha dhaawicin, niyaddana ha ka dilin sida hadda marxaladdan oo kale. Waayo qofkan hadda noloshiisa oo dhan ayuu u baabi'iyey, weliba iyada darteeda, si ay iyada u caafimaaddo oo aysan ooga dheeraanin nolosha, aysan ugu cillaynin. Balse iyadu waa ay fahmi weysay, waa ay ka tagtay, qof kale ayayna ka raacday. Mana wanaagsaneyn arrintaas. Xitaa ma aysan isdhihin qofkan waa qof noloshiisa dhan uu baabi'iyey taada darteeda, si uu adiga noloshaada u badbaadiyo, caafimaadkaada dartiisa saas u sameeyey. Balse way dhacdaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe inoo taabo. Haddii aad hore inoola joogtana waad ku mahadsan tahay. Like-taada waa inoo dhiirigelin. Share inoo dheh si aan u helno saaxiibo, asxaab, dhammaan intaba.